إبراهيم محمد oo ku magac dheer Ibrahim Saransoor waa nin dhalinyaro oo kamid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool ismaamulka Mandera waa aba saaxiibul ciyaal oo laba xaasla Ibrahim waa aqoonyahan la soo shaqeeyay hay'ado kala duwan balse kadib shaqo la'aan noqday waxa uu haatan bartamaha magaalada Mandera ku gadaa shaaha taas oo ay dad badan ku taageereen halka kuwa kalena ay kaga soo horjeesteen shaqadiisana ay ku liidayaan maadaama Ibrahim uu yahay nin dhalinyaro oo aqoonyahan shaqo kalena ay ka habooneed inuu raadsado sida dadka qaar ay qabaan maadaama shaqada shaakarinta ay tahay shaqo gaar u ah haweenka oo lagu yaqaano ragana aysan ahayn shaqo lagu yaqaano Ibrahim Maxamed Saransoor waxaan ku booqday goobtiisa shaqo ee uu shaaha ku kariyo waxaan ugu horeynba wax ka weydiiyay sababta ku kaliftay inuu bartamaha magaalada shaaha ku kariyo asagoo aqoonyahana iyo in taariikhdiisa oo kooban uu sharaxaad ka siiyo bulshada si loo ogaado qofka uu yahay إبراهيم سرنسور إبراهيم محمد سرنسور waxaan ahay nin Mandera degan halkan ku dhashay halkan ku barbaaray primary secondary madrasadii halkan Mandera ayaan ka qaatay college-kii iyo jaamacadii Nairobi ayaan ku soo dhamaystay halkan ayaan ku soo laabtay adeeg kala duwan baan la shaqeeyay ilaa muddo 10 iyo xoogaha gaaraysa aaba waxaan ahay laba khayr leh baan ahay alxamdulillah ilaahay waana barakeeyay ka aad u badan yahay waajibaadka aad bay u ballaaran yihiin countiga markay noo dhalatay doorasho iyo waxaan ku raahdaa aad iyo aad looga loolmay gadaashee countiga noo dhalatay shaqo ayaan ka doondoonay waagi bariyada wixii la soo dejiyo darbiga ku qoran arji baan u qoranaa markii dambe waxaan ogaanay noocyada loo qoro ana khibrad baan leh ilaa 10 iyo intaasoo sano ka soo shaqeynayay jaamici baan ahay wixii la soo qoriyay khibrad baan u lahaa wixii khibrad u lahaana arji baan u qorin jiray marka taksiga iyo shahaadooyinka photocopies-koodii waagi bariyaba iyo arjiga qoridiisii ayaa xadka ka baxay marka howlihii iyo waajibaadkii way ku yeelaan oo maalin kuma fadhinayaan waxa weeye magaalada inaad tagtana mashaxaad kama aqaano oo kuma fiicini idan waxaan door biday shaqada haday oolin halka gadaashayda qalabka iyo toban waad aragtaa shaah baan hagaajiyaa boorajka ayaan kariyaa oodka ayaan soo hagaajiyaa inta badan ciideedaan ku soo hagaagsadaa ramadaanka hadda ayaan bilaabay sambuus ayaan casirkan inta soo dhigaa hadda galabtaba insha Allah waan soo dhigi doonaa ramadaanka dhamaantii waan gadi jiray hadda marka afar la furo injir bay dib u yar dhacday laakiin aad bay u qurux badan tahay magaaladan asxaab xoog leh baan ku leh aad iyo aad xoog badan baan ku leh oo soo jiidashadeedana alxamdulillah waan isku dayayaa idan waa tahay shaqadan muddo kooban baa ku jirtay rag badan oo hay'adii kala soo shaqeeyay aqoontaadii iyo khibradaadii iyo heerkaada jaamacadeed garanayo iyo shahaadada aad haysato garanaya jiro oo magaalada kula jooga isla soo korteen raggaas maxaad kala kulantaa marka aad isaragtaa wallahi way ku ugu qorsalaan inta badan rag saaxiibada ahaa jaamacadda aan isla soo marnay hay'adahan iskala soo shaqeynay countiga ama ku jira ama hay'ado kale ku jira inkastoo magaaladeena hadda hay'adaha ka dhamaanayaan oo wax kastaba countiga ay afka u ridatay way ila yaabaan rag badan baa la yaabay Ibrahim halkan wuxuu ka doonayaa maxaa halkan dhigay maxaa halkan ku soo celishay yani shaqadan ayay xoogaha yar liidayaan anna waxaan ba uga talagalay qajilka inta yar ugu dambaysa shaqo qabashada inaan iskaga tirtiro ayaan ugu talagalay maadaama ay oolin countiga shaqada ay oolin marka waxaa leedahay shaxaad baa ceeba shaqa sharaf wax ku ka waa in la shaqeeyo waxay ku leeyihiin warnoodi waxa uu ilaahay ku snooba ka soo diibinoodi wuxuu ilaahay ku soo diibiyaa laga qaadaya shaxaad kale iskuma fiicnino inta badan waan ka bureejiyaa هون ويكوتالا ديل باكوية خير باكوية كلا لقى دونية نلو بالقى دونية تعليم بالقى دونية استاجر بالقى دونية وشي بعض هذا شرف بالشيء كل هذا وريدي بيه قضية كان تصميم يعني ساكي هذا دقي يسمعها وإلا الشقية وحصل صار لي يا شو واتها أنت هذا شغال كنت تمدرك كلية أما قدام مرحية ولي بعد فرق بدن بهال كان يقول صامري مد اختارون آد صاحبه إنه هالمر بدن كوبريتيف إسكالاس وشقيني حفيز كيس مال هال كان فوجين ويا هي أيها ما ندي ود أن أشيء وريا ما عرفت هوديل كان هال كان كفر بيجي هوديل بنقول الماما ماشان جريسة هوديل كان فيه هال كان كوه جاي قلب كلوبه هي بالشدة أوبا هانتها هي كاه قطيرة يا ما عرفت هي خفاتهم كهيات كجن ورانا يس مية صارك وروان كسر مري إن أنا حلاها كبقية وان كسر ده مري بيجي كذا أبوها اللي بحان كعرف خيا ما نون حياة شقة قروح بدنيا هايسة وطن أتبقى جدي يسويها لجو يقاني دتك دان لعنتها اللي انت داود إيه وحاجة جدي دتك أنجيل اللي هين واجدي هرا يعني حولها اللي هي أي جديتي وحن دبر أرض جري مركو عنو أقاني جدني واجه هرا واحد يرى تبريا كأسرع داود كذا كاسوي له أنا جو هيل جيل جدي
inaad iga naxdaan kaa baqay marka mutacalimiintii aniga arrin culus baana dhex taal laakiin in yar bay u soo noqonayaan markay koobkii waxaan tiraahdaa boorajka ah ee qiimaha badnaa ka badaan daqiiqada ka bacdi caloosha buuxsantay ay kaadi u ordaan gaajo qabatay raashin doonaan war raashinba goorma igu dambaysay hadda un baan noolaanay ayay hadda bilaabeenoo shaahi durba wuu iga dhammaaday bagaystii oodkici durba wuu iga dhammaaday order baan bixiyey wejigii sida camal ama boorajkii mushaariyadii waa iga dhammaani haysaa laakiin ibraahim bannaanka ku gadaa waddada hadda ku gada oo waddadii nairobi iyo mandheera isku xidhaysay qarkeedii baad ku gadaa nacam meel maqaayad ahoo ama guri fiican ma weyda meeshaana door bixi haddeen adeerow dhulkan horta badidiisa wuu xidhan yahay midda labaad kharash adag bay u baahan tahay ama aad dhul ku dhisto kiradii 15 kun 20 kun anna tan hadda 20 kun iska xijin karayso waa in yaroo shaah ah oo ku sii cilcili intay iska keenayso ku sii cilcili biilku uu kugu soo go'in kiradii ay kugu soo go'in saaxiibka hadee shaxaadkeen aad dhihin yani iska ilaalinta wejiga sidiisa ha ahaado aad dhiman magac uu ka har ilaa way ku daamarayaan salaanta ma ogola hadii wariya maanta qadada ii dib biri salaan ma jiro yaa fiican maanta qadalaan aw shaahan hagaaji quruxda badan shaqo waatan iyo sharaf marad dhaxdaasina waxaa jirtay in aan isu diyaariyo mudana baarlamaan in aan u tartamo amnigaadii bulshada aad ku lahayd iyo wixii aad doondoonaysa shaahan aad gadaal ugu soo noqotay maxaad ka wadaa marka hadda waxaad noqon doontaa asaar shirki xildhibaanimada xildhibaankii shaah karin jir oo waliba waxaan soo saari doonaa lafa gariyo hadda waxaa jirta dhalinyarta intooda badan inay darbiyada fadhiyaan waxaad leedahay war kaali harqaan baro gabadhi kaali saaluunka baro kaali korontada baro makaaninimo kaali baro adba baray ku leeyihiin war aniga shaahan shubaa waana aqaanaa intaan sheegay qaybaheeda badan waan aqaanaa waana ku howlgeli doonaa insha Allah kaalay bar markaa tiraahdo qadada noo dhiibay ku dhahayaan war qada ma hayo hadii faraha iga qaad u diyaar ma ah inaan dhalinyarta markaa taasay raba ma taal ada hagaajini aniga waan hagaajin rabaa shaahan aan ka hagaajin rabaa xafiis kursigiisa wareeganay ay siila shaahan ayaan ka hagaajin rabaa dhalinyartana waan ka tababari rabaa idan labadaada lugood hoostooda dahab baa ku duugan waxaa ka xigto oo kali garweynta aad ku jibin lahayd dhulkan shaahan ka bilow garweynta soo gad jibi dahabkan soo saar mar waliba waxay yiraahdaan cawska wuxuu aad cagaar ugu egyahay dhanka kale webiga geeskan aad ka taagan taqarkiisa kale ayaa cawska the grass is greener on the other side waa been cagaarka xagga kuu muuqda kana ka sii cagaar badan kana ka sii green badan idan hoostaada u dugo dahabka aad doonaysa irsaaqada aad doonayso luulka aad daydayaysa labadaada lugood hoostooda ku dug idan 8 sano oo shaqo doondoona oo photocopy bixina oo taxi bixina ayaa waxay iga qabtaa shaahi iyo biilka ciyaalka aan siin lahaa ayay iga qabtaa idan hadeertan waxa ii soo baxay biilka asagoo degan buu ii soo baxay qabow biilkii labada reer iyo ka sii badan iyo hadee ilmo iskuul ku jiray iyo dugsigii halkan buu ka soo baxaya waxaan dareemay markii inaan yara nafisay ee aan inta badan ba aad u doondoonaynin daba orod war maxaa la soo dhijay asxaabta markaa halka soo war shaqa la soo dhijay ma shaqa la soo dhijay annaka hadee fariisaan koob ku shubay mahadsanid shaqa ii sheegtay horta howlahaanay waxa igu khasbay tacliin wax waliba waxba laga ziyaadsadaa dhibka iyo shaqo la'aanta iyo nooc loo shaqaaleeyay countiga naga haysta ayaa waxaan alxamdulillah ku baranay tacliin iyo cilmi iyo fikrad iyo fahmo aan laga heleen ama aan lagu iibsadeen dahab iyo dollar aan lagu iibsadeen ayaan ka ziyaaday marka wax kasta oo kugu dhac dhalinyarta waxaan leenahay wax kasta oo kugu soo ziyaada wax kasta oo moodo inay ku dhibaysa faa'iido ku jirto kalis ka tuuje marka waxaad leedahay shaqadan banaan fadhiga ah inaan ka shaqeeyo anoo jaamici ah waxay u kalifay habka shaqo bixinta dawladda ismaamulka Mandheera ee habka dadka loo shaqaaleeyo ajibaad qoranaysaa nin baaba ku jiro shaqaynay 3 bilood soo dhaafna shaqaynay mid baa maalin wuxuu yiri war halkan aad qoran waala tay ana liisi halkan waana runtii markay soo baxday wuu qaatay xafiis ku fadhaa يعني تا ulama jeeda inaan ku gardara ama ku ceebeeyo qolyaha county ka shaqeeya afwan taasi laakiin waa sida jirto dhabta ah maxaan ula jeedaa da'yarta nooceeda ula xarbinaysa meel nin loo qoree fadha la soo dhiji qoranaysa yahay shaqo doono haddii oday uu jira gacanta ku soo qabanaya suldaan ahaya ugaas ahaya
qabqabla siyaasadeed ahaya mid xafiiska idin fadhiya adiga ku matala ahayaaba taamicnaheeda ma aha inaan ula jeedo inaan meesha ku qows yarahay ama aan ku bax yarahay ee micnaheedu waxa weeye laba qof cidiina hadii laga qoro way idin matashaa mid kala dooni ma hayso dhamaatay ha may waaba sida ayada ana kula hab wala fadhiisana odayaasha way fadhiisanayaan shaqada waa la qaybsanaya reehbel inta lagu kala tagi in adeerka ayaa la qor adna maxaa soo doon marka maxaa taqaanaa waa lagu matala laakiin anaga bedeli doona waxaan ku bedeli doonaa yaa mudan hadeertan way taagantahay cidna ku ceebayn mayna way jirtaa annaga inoo taala marka inaan nidaan war yaa mudan xirfadan yaa ku sareeya ugu dambeynta dhalinyarta waxaan dhihi lahaa waxaa la qootaa qalinka eebe ayaa la qootaa maalintay timaadana midka wax isdaamarina asaa ku yeeri doona inta ay taa ayada socoto hadan seegine ee gadaashayda alaabta taal korontada saad isku tihiin makaanikaas isku tihiin ay ma samayn kartaa lafaha kaligood inaad shiido ma samayn kartaa caloosha inta badan Soomaalida ma danaysa inaad qofto hagaajiso qoobabka iyo madaxa dhisho ma hagaajin kartaa suuga iyo food ma ka hagaajin kartaa qurux badan ma ka hagaajin kartaa shaqo ay nooc idan maanta shaqo ma taale mid abuur aad mid kale ku shaqaalayso sidaad u dayacan ha adiga abuur mid dayacaneen noocaada adna kaaftoon mid in adeertahay ama walaalka ama saaxiibadaada ay nooc qabiil ku doona ha ahaada dhalinyartana waxaan idin dhihi lahaa fadlan siyaasadana wax ka bedelo nooc loo shaqeeyana wax ka bedel saaxiib sameey farsamo yaqaan sameey qabiilna ha ku eegin farsamadiisa fiiri dhalinyartana taa ayada ku abuur si aan u soo saarno jiil ka ilbaxay ka xoroobay arrintan lagu saleeyay qoyska hoose maxaad ku baaqi lahayd maxaa socodsan mid bulshadan u dhihi midna shacabkan u dhihi shacabka oo indhaha bulshadan u dhihi midna shacabkan mid afwan midna bulshadan u dhihi midna madaxdan u dhihi midna bulshadan u dhihi waxa weeye war ninka aad qoyska ku dooranaysa wax dan uu kaaleeyahay madax labada qoysaska laga soo kala doortina ayaga isla haadis adiga ku madax ha ku dooranin qoysi qiimo ku dooreeya wax soo saar leh ku dooro madaxda waxaan u dhigay maanta maamulka haysa ay maalkan faraha badan ee faraha kulidita uu dhamaanaya ee bulshada ugu adeeg yaa mudanay shaqada qaban karana dhahay habarsay dhashada nagada balaayin shilinka imaada hal cali garoob laga mid weynin beeri dadkiiba waxay qaateen beerahan iyo wakeeda iska daayay countiga ayuu dahab fadhaa ee soo foqsada dahabkina lawaa dahabkina lama hayo gacan lagu ma hayo hal cali garoob lagama qaadin oo beerihii looma beerin idan su'aasha madaxda waxay ka aaminsan tahay waxaan uma bisla uma nafujid ma fahmi karaan